waxaasoo dhan marka isku wada keeno adiga ma isbari kartaa haa nacam waa isbari kartaa jawaabtu waa haa laakiin waxay kaaga baahan sidaan hore u sheegnaba awood oo talent adiga kugu jirto in la helo iyo inaad practice badan samaysid oo dadaal badan ay isku bixiso haddii aan awood u leeyahay inaan ibdaac leeyahay ama talent aniga aan leeyahay xoogaa yar oo dadaal haddii aan ku daro waa gaari karaa bismillahi rahmaani rahiim waxaan rabaa inaan ka hadlo waa maxay multimedia multimedia sida erayga aad ka dhayan kartaanba waa laba eray multi iyo media oo mediaha kala duwan noocyadiisa kala duwan ee maalin walba nolosheena aan aragno sida qoraalada muuqaalada waxyaabaha maqalka ah iyo waxyaabaha webka la xiriiro ama digital deviceska dhammaan waxay isku soo wada galayaan erayga multimedia waxaa soo hoosgala takhasusaad kala duwan oo aad u fara badan tusaale qaybta naqshadeynta oo kala daan tusaale soo qaato oo loo yaqaan graphic design waxaa soo hoosgala takhasusaad aad u fara badan qaybta maqalka waxaa soo hoosgala takhasusaad aad u fara badan qaybta muuqaalada iyo video samaynta waxaa soo hoosgala takhasusaad aad u fara badan qaybta waxyaabaha dhaqdhaqaaqa iyo animationska loo yaqaanana sidoo kale waxay soo leedahay takhasusaad aad u fara badan oo qofku uu kala dooran karo marka aan soo koobno multimedia maalin walba waxa nolosheena aan aragno ama aan maqalno ama aan daawanaba waxa ay ka wada kooban yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee bahweynta multimedia muhiimadda uu leeyahay multimedia iyo waxa uu qofka rabo inuu barto uu ka helayo muhiimadda uu multimedia leeyahay waxa waaye wax walba ee caalamka hadda aan isticmaalno ama na soo gaaro ama anagu aan bixinaba waxay isugu yimaadaan communications iyo xiriir ka imaanaya hal dhinac ee soo gaaraya dhinaca kale ha ku soo gaaro qaab qoraal ah ama qaab muuqaal ah sida midka hadda aad daawanaysaan oo kale mid maqal ah iyo qoraal iyo waxyaabaha kale la xiriiro ama TV-ha ka imaado ama website-ka iyo waxyaabaha telefoonada la xiriiro sida social media-haba ugu yimaado kale sidoo kale muhiimadda uu leeyahay qofka baranaya ahina waxa weeye qaybaha kala duwan ee media-haas hadba qofka midda uu jecel yahay ama uu aad kugu ilanayo inuu ka doorto waayo waa fursad aad u fara badan ee qaybaha kala duwan ee multimedia qofka u sababi karta inuu fursado shaqo fara badan ee kala duwan inuu kala helo haddii aan si gaar ah u sii taabto qaybta ugu horeysa ama aan dhihi karo waa aasaasiga ugu muhiimsan ee multimedia waana qaybta loo yaqaan graphic design graphic design ku asaga naftirkiisu wuxuu kala leeyahay takhasusaad fara badan sida sawirada in la edit gareeyo ama wax laga bedelo ama manipulations loo yaqaan ama photo compositing ee caanka ay ku tahay Photoshop iyo barnaamijyo fara badan oo dhigma takhasuskaas multimedia guud markii laga soo tago qaybta graphic design-ka asaas waxa uu ah qaybta sawirada inuu qofku edit gareyn karo ama uu barto sida sawirada loo edit gareeyo waayo takhasus walba ee uu rabo inuu dib ka qaatahay saameyn wuxuu ku yeelan doonaa sida uu u yaqaano inuu sawir edit gareeyo iyo wax la midka ah waxaa kaloo ku jira qaybta graphic design-ka inuu sameeyo wax loo yaqaano illustrations ama drawing artist dhinacaas markii loo eego dadka qaar garan og yihiin waxaa kaloo ku jiro qaybahan loo yaqaano publishing-ka iyo media gaar ahaan haddii ahaan leed daabacaad haddii ahaan leed report-yada in la sameeyo wixii la midka ah kulli waxay soo wada hoosgeli doonaan qaybtan loo yaqaano graphic design-ka sidoo kale waxaa soo hoosgeli doona waxyaabaha loo yaqaano document cloud ama PDF ama hadba sidii loo garan og yahay Acrobat oo awood aad u fara badan ay ku jirto marka ay noqoto in dokumentiyada la isku edit gareeyo ama wax laga bedelo qaabka loo yaqaano printing format ama interactive format qaybta kale ee loo yaqaano animationska oo ayadana kaalin buuxda ka ciyaarta dhanka multimedia-ha waxay saameyn fiican ku yeelataa qofku marka uu rabo takhasuskaas inuu aado awood intee in la ego ayuu leeyahay qaybta asaasiga u ah oo ah graphic design-ka waayo haddii graphic design-kaaga awoodiisa ay dhammaystiran tahay waxaa kuu sahlanaanayso markiiba si sahlana ula qabsato ulana jaan qaado animationska inaad diyaarin karto qaybta kale ee ugu muhiimsan ee samaynta fiidiyoyaasha iyo muuqaalada waxaa soo hoosgalaya qaybo kala duwan oo muhiim wada ah sida in la diyaarin karo scripting inaad diyaarin kartid oo kale iyo qaabka fiidiyogaas uu u soo bixi doono iyo sheekada ka dambeyso fiidiyogaas la duubi doono waxaa soo gali doona qaybihii loo yaqaan storyboard inaad samayso dhammaan fiidiyogaas iyo muuqaalkaas ayadoo sharaxan oo qaab drawing ah loo sameeyay kadibna aad u samayso editingkii
oo aad isticmaali doontid tools kala duwan waxaan meesha laga tagi karin markii loo eego multimedia qaybahan loo yaqaan 2D and 3D oo ka ciyaaran kaalin aad u mug weyn markaan 3D leenahay waxa soo galay waxyaabo fara badan oo aan naqaano filmaanta kartooniska iyo waxyaabaha xayeysiinta ama waxa loo yaqaan CGI ama FX oo kaalin mug leh ka ciyaara marka filmaanta sameeyntooda iyo xayeysiinaha ama xayeysiimaha aadka u heerka sareeya dhamaan markii aad isku soo wada duubto waa takhasusaad aad u fara balaaran challengeska uu leeyahay fieldigan multimedia waxa waaye qofku wuxuu u baahan yahay mar walba inuu noqdo qof hal abuur leh karti leh wax urin kara sameyn kara fikrado hor leh oo aan looga horeynin waa laga yaabaa takhasusaadka kale ama computer science ama information technology markii la fiiriyo inay kaga duwan yihiin dabcan qofka ayaga naftirkooda bartahay waa laga rabi doonaa hal abuur inuu yeesho laakiin qofka multimedia barta wuxuu gaar leeyahay qof walba ama institution walba ayaa waxa laga rabaa inuu sameeyo sumad lagu bargarto uu kaga duwan yahay inta kale ee caalamka iska leh maxaliyada niche-kaas oo doortay ama uu ku jiro fursadaha uu rabo yani uu heli doono qofka multimedia barto sida hore u sheegnay in kastoo ay badan yihiin waxay u kala duwan yihiin hadba niche-ka qofka uu doorto haddaan sii fududeeyo graphic design-ka kaliya waxaa ka bixi kara qaybaha soo socda qofka inuu noqdo qof sawir qaade ah ama sawirada la soo qaaday edit gareeyo qof logooyinka iyo brandingka sameeya qof buugaagta iyo publishingka sameeya haddii aan leed daabacaad iyo haddii aan leed kuwa online-ka lagu daabaco qof ka shaqeeya waxyaabahan loo yaqaano digital marketingka iyo wax la xiriiro website-yada iyo wax la xiriiro qof ka shaqeyn kara qaybahan loo yaqaano typeface-ka ama typography-ga qofku inuu sameyn karo waxyaabahan iconiska loo yaqaan inuu design gareey karo fursadda u furan qofku waxa weeye inuu sameysto identity u gaara asaga uu ku sameyn karo waxyaabaha loo yaqaan design assets sida mock-upska inuu sameyn karo asagoo alifi karo waxyaabaha brusheska loo yaqaan design assetka qof walba designer u baahan yahayna uu diyaarsan karo waxyaabo fara badan ayaa meeshan soo wada galaayo maxaa looga baahan yahay qofka raba inuu multimedia doorto kow sidaan hore usoo sheegnaba waa inuu waxaan qofkan uu xiiseynaa uu yahay uu jecel yahay waayo fannigan ama fieldigan wuxuu salka ku hayaa loo yaqaano art ama artist Soomaali waxaan u dhahno waa laga yaabaa xirfadaas in dadka aan ku naqaano ay yihiin dadka darbiyada wax ku sawira laakiin fieldigan barnaamijyo fara badan oo la isticmaalayaa wixii aad u sahleen qofkii artistaha ahayna inuu waxyaabihii artiga uu ku isticmaali jiray toolskii iyo techniqueskii ayadoo la soo fududeeyay oo loo keenay waxyaabahan loo yaqaan tabletska iyo computerada haddii touch screen yihiin iyo waxyaabaha styliska inuu ku sameyn karo wixii uu ku sameyn jiray haddii watercoloring ahaan lahayd haddii ahaan lahayd paintingkii iyo wixii lamida kulli meesha ayuu dhammaan ugu wada jiraan asoo u kala dooranayo hadba projectiga uu rabo inuu ka shaqeeyo haddii aad rabto inaad multimedia doorato waxaa aad u muhiim ah inaad leedahay computer aad u heer sare oo xamili kara awoodda waxyaabaha loo yaqaano haddii video ahaan lahaa animations haddii ahaan lahaayeen graphic design-ka 3D-gana maba kusii jiraba rendering machine ama rendering engine aad u waaweyn ayay leeyihiin waxaa marka lagaaga baahan yahay computer aad u xamili kara inaad leedahay oo awood aad u sare leh waxaa kaloo looga baahan yahay dabcan haddii aad heli kartid waxa loo yaqaano ama iPad ama tablet ama waxa loo yaqaano drawing tablet oo loo yaqaano Wacom waxay kuu suuro gelinaysaa in wixii aad muuska maatan click ku siin lahayd si freely in styliskaaga ama qalinkaaga aad ku darow gareyso waxa aad arkaysid shaashad ay kaaga soo baxaan oo ku sahlaysa wax maskaxda kuugu jiray in markiiba banaanka imaadaan waxaanan meeshaan looga tagi karin casrigan hadda aan soo joogno especially maalmahan dambe waayahan waxyaabaha loo yaqaan AI-ga iyo saameynta uu ku leeyahay multimedia iyo gaar ahaan takhasuskan qofka baran doona waxa ka horeysa intaan AI aynaan ka hadlinin ka hor yaa heli kara featureska noocaan oo kale featureska noocaan waxa heli kara oo kaliya qofka iibsado software-rada ayagoo sharciyeysan waayo waxay u saamaxayaan qofkaas shirkadan weyn ee development-iga gelisay ee qarashka faraha badan gelisay awoodii ay ugu tala gashay inay u siiso oo qofku u sahli doonto hal abuurkiisa inuu noqdo mid aad iyo aad ugu sahlan marka uusan isticmaalaynin waxaa muhiim ah meesha in laba qodob aad ina u kala fahantaan mid waxa waaye tool ina isticmaasho midna waxa waaye ina cilmi xambaarto aad ay u kala duwan yihiin dadka qaar kood waxay u haystaan ina graphic designer noqdo
waxaan u baahanahay inaan Photoshop, Illustrator, InDesign iyo wixii lamid ah inaan barto haddii aan rabo inaan Illustrator haddii aan rabo inaan animation bartana After Effects iyo wixii lamid ah haddii aan rabo inaan video sameeyo Premiere Pro iyo wixii lamid ah inta hadda aan sheegnay waa hal family oo shirkad la yiraahdo Adobe ay leedahay dhamaan ma ku qasbana qofkii inuu Adobe kaliya isticmaalo wuxuu isticmaali karaa software fara badan oo dhigmaya jira qaarkoodna ay yihiin perpetual licenses oo hal mar la iibsado qaarkoodna ay yihiin subscriptions waxay u fududeynaysaa qofka awoodiisa hal abuur inuu ku soo bandhigo waxyaabaha loo yaqaano generative AI asagoo isticmaalayo prompts oo in ka badan 100 luqadood midii uu yaqaanaba uu ku cabiri karo waxa aad u arkaysaa qof go'aan ku gaaray inuu natiijo ka keeno field mucayyana tusaalaha ugu soo dhow ee aan ku fahmi karo fieldigan waxa waaye fieldiga dhakhtarnimada waxa arkaysaa dhakhtar lagu leeyahay dhakhtarkan waa cudurro guud wuxuu kugu sameeynaa inuu ku wareesto calaamadaha laga helay iyo xanuunka iyo waxa aad dareemayso inuu ku wareesto kadibna uu ku yiraahdo waxaad aadaa dhakhtar hebel oo takhasuskaas leh waxa dhici karta marka dhakhtarkaas u tagto inuu ku yiraahdo aniga qaybta daaweynta ayaan ahay qaybta surgeonka waxa ah dhakhtar hebel waxay ku tusinaysaa marka sidaas takhasusaadka kala duwan ay u leeyihiin ayuu u leeyahay fieldigan tusaaladan u soo qaato 8 sano ka hor shirkadda DreamWorks ee aad ku taqaanaan filmaanta kartoonka inay sameyso ayaa waxay sameeyeen video ay uga sheekeynayaan processka ay mariyaan filmaanta kartoonka marka ay sameynayaan ilaa 10 departments in ka badan ayay martaa videogaas aa arkaysiya in la sameeyo oo ka bilaabanayso story in la sameeyo sheeko la alifo haddii rabto sheeko xariir ha noqoto wax fiction iyo sheekadaas in laga sameeyo storyboard kadibna loo gudbiyo teamkii maxaa la yiraahdaa artiga sameynayay kadibna loo gudbiyo teamkii 3D ga sameynay modelingkii loo gudbiyo qolyihii lightingkii iyo sameynayeen iyo waxyaabaha loo yaqaano ilaa uu filimkii ka soo baxo 10 department in ka badan ayuu maraa qofkii daneynayana waa la wadaagi doonaa linkigaas si uu u fahmo awoodda multimedia uu leeyahay waxaan rabaa inaan aad iyo aad uga digo qofku inuu isku dayo dhammaantood inuu kulligood hal mar ku wada guuleysto aad ayay u adagtaa waayo carabtu waxay dhahaan man dalaba al-kull fatal kull haddii aad isku daydo kulli inaad wada qabato kulli way ku seegayaan laakiin waxaan kugula talin lahay dooro areada aad leedahay awood ayaad u leedahay natiijo fiicanna waa ka keeni kartaa waxaan aaminsanahay in awood badan ay kugu jirto awooddaas kugu jirtana aad banaanka ku keeni kartid waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado wax dadku inta badan ay isku qaldaan haddii aad tahay qof IT ah waajib miyaa inaad noqoto qof multimedia barto kuma qasbanid lianna IT wuxuu leeyahay waa xag kala duwan qasbaya qofku inuu barto balse multimedia ka mid ma ahan qaybahaas waayo fieldiga salka wuxuu ku hayaa loo yaqaano art artigaas oo ka imaanayo waxyaabahan kala duwan ee dhammaan soundki iyo videoski iyo wixii lamid ah qoraalkii iyo qaybo kamid ah laga yaabaa inay IT-ga support kaga baahdaan sida software-adii ay isticmaalaysay hadaa website-ka sameyn lahayd iyo wax la mid ka ah balse waxaan oo dhan waxay isku wada tagi doonaan qaybtan loo yaqaan art waana takhasus aad iyo aad wadankeena looga baahan yahay marka aad u fiirsatid dhalinyaradeenna waxa u maleysaa inay wax badan ayagoon aad u dhameystirin aqoontii inuu qof walba uu leeyahay intaanan ka fahmay intaan u baa meel istaagaya laakiin way fiican tahay qofku inuu awoodiisa meel gaar ah takhasus ka dhigto balse wax badan ayaan kula talin lahaa qofka awood fara badan inuu dhameystirto ugu yaraan area ay xirtid eriyooyinku marka waxay kala duwan yihiin haddii aad graphic designer rabto inaad takhasus ka dhigato waxyaabo waxaa jirto waajib ay tahay inaad ay ku dhameystiran yihiin tusaale waxaa waajib kugu ah muhiimna ah inaad taqaano sida sawirada loo edit gareeyo loo tacdiiliyo photo compositing loo sameeyo iyo wax la midka taas muhiim ay tahay qofka graphic designerka qaybtan loo yaqaano illustrationska iyo factory drawing waxa loo yaqaano waxay muhiim ugu tahay waa waxyaabaha laf dhabarka u ah qof walba oo graphic designer inuu barto qaybahan loo yaqaano printingka haddii aad rabto inaad aado muhiim waxa inaad awood badan u leedahay illustratorka Adobe Illustrator ama Adobe InDesign Photoshop dabcan kama marna waa takhasus dhameystiray saddexdooda oo lagu daray ani waxaan inta badan raaciyaa Adobe Acrobat oo muhiim u ah waxyaabaha dokumentiyada iyo sida qofku la dhiil gareyn lahaa waxa muhiim ah oo aan meesha ka marnayn fieldigan loo yaqaano fashion designka oo dadka ku takhasusay dharka waxa aragnaa caruurteena maalin walba waxa loo keenaa sanad walba dhar iyo ku ciidaan miiswidiis xagee la keenaa takhasus jiro waaye oo qofka graphic design inuu base ahaan u leeyahay kadibna wuxuu ku sii dhameystir karaa software fara badan oo 3D ah oo sida Morpholis Designer soo kala ku dhameystir karaa 3D ga qaybihiisa kala duwanna waxay leeyihiin video game marka rabo inuu qofku barto ama waxyaabahan loo yaqaano
game characterka inuu sameeyo kale dhalinyarada ciyaaraha daawata aad ay u yaqaanaan waxyaabahan video animationskan ama ciyaarahan ay daawanayaan ee maalba sidii interactive-ka ula sameeyana waxaas dhan wada multimedia takhasusaad kala duwan waaye baaxadda uu leeyahay marka waxaan dhihi karnaa waa busteejo baabuur fara badan ay ka baxaan adiga ayaa laga rabaa go'aan inaad ku gaartid xageen aniga u iilanaya ma waxaan jeclahay inaan aado dhanka videoga ma waxaan jeclahay inaan aado dhanka multimedia ee qaybtan loo yaqaano animationska mise waxaan rabaa inaan dhanka graphic design ka aado sidoo kale waxaan ka marnayn oo baahi aad u xoogan ay ka jirtaa dhanka 3D-ga oo loo yaqaano waxyaaba loo yaqaano FX-ka ama CGI-ga oo aad iyo aad marketing hadda aad suuqa u wada qabsaday oo wax badan qofka u fududeynayo intaan ayaa rabaa inaan kusoo gunaanado waa aaminsanahay inaad natiijo fiican ka keeni kartid takhasuska aad dooranaysid iyo midkii aad ku riyoon jirtay laga yaabo markii aa yareed inaad buugaag badan oo drawing aa lahaan jirtay dhammaanteen waa soo wada lahaan jirnay meesha aad joogto maalin ayaan soo joognay waxaana aad jeclaan taladan oo kale inaan helno guul ayaan ku rajeynayaa iyo inaad naftaada wax badan ka bedesho assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu